السلام عليكم saaxiibayaal maanta waxaan sharaxaynaa film hindi oo action science fiction ah oo lagu magacaabo 2.0 fadlan like saar muuqaalkan subscribe-na ka dhig run sheeg si aad ula socoto muuqaaladeena xiga daawasho wacan 8 sano ka hor report aad u horumarsan oo lagu magacaabo GT ayaa dhibaato weyn ka geystay Chennai India ninka soo saaray Dr. Fasey Garan ayaa ka caawiyay joojintiisa wuxuuna geeyay madaxaf waqti xaadirkan wuxuu ka shaqeynayaa mashruuc la mid ah midkaas laakiin wuxuu ka taxadarayaa inuunan gelin qaladkii uu ku sameeyay GT oo kale ilaa iyo hadda wuxuu awooday inuu sameeyo Android lagu magacaabo Nila oo aan la mid ahayn GT midaasoo aan ku qalabaysnayn hub waana mid lagu maamuli karo shucuurta bini'aadanka waxayna ku habboon tahay qabashada howlaha guriga iyo caawinta xafiiska ee dhanka shaqada maalin maalmaha ka mid ah koox arday jaamacadeed ayaa yimi sheebaarka Dr. Fasey Garan si ay wax uga bartaan riboodkiisa bini'aadanka markii wax laga weydiiyay riboodka GT dhakhtarka wuxuu sheegay in laga yaabo inuu dib u soo kiciyo haddii adeegiisa loo baahdo mustaqbalka laakiin hadda wuxuu ku habboon yahay madaxafka inuu iska yaalo cashirka kadib mid ka mid ah ardayda oo talkiisa ku hadlayay isagoo mooto ku wata dariiqa ayaa awood xoog badan gacantiisa ka saartay talkiisa wuu yaabe wuxuuna arkay talkiisa oo hawada sabeynaya kaasoo diidan inuu dhaqaajiyo muuqaalka shimbir ayaa ka dhex boodboodaysay talka gudihiisa intuunan hawada sare ku mirqin dhacdada kadib dhowr kiis oo la mid ah midkaas ayaa ka dhacay guud ahaan magaalada Chennai laga bilaabo suuqyada wadooyinka ilaa dukaamada elektarooniska wax taleefana kuma harin magaalada oo dhan dhammaadka saacad gudaheeda dadka ayaa buux dhaafiyay saldhigga kuwaasoo sheeganaya in taleefanadooda ay ka maqan yihiin laakiin booliiska ayaa sida dadkoo kale waxba ka ogeyn arrintan intaa kadib golo cilmiyeed uu hogaaminaya Kumar ayaa arrintaani waxa keenay si ay u ogaadaan iskugu imaanaya shir albaabada u xiran yihiin qaar ayaa goobta ka sheegaya dhacdadan inay tahay duulaan shisheeye oo dhanka isgaarsiinta ah halka kuwa kale ay qabaan heerkulka cimilada ee sii kululaanaya inuu keenay Fasey Garan uu diiday dhammaan aragtidahaas wuxuuna sharaxayaa in taleefanada aynan hawada ka bixin weli taasoo la micno ah inay ku sugan yihiin meel xuduudka u dhow maamulaha shirkadda ayaa xaqiijiyay in dhammaan taleefanada ay hal mar wada dameen taasoo hadeertaan aynan cidna u suurtageli karin inuu soo qabto muuqaalka xigo gaari ay ka buuxaan taleefano casri ah oo ku socday dhanka iibsadaha ayaa wadada ku qarxay iyadoo taleefanada hawada duuleen sida kuwii hore oo kale hadda waxaana la baraya mulkiilaha dukaanka taleefanada gacanta ee Giant wuxuu ku sii socdaa gurigiisa isagoo wata baabuurkiisa kaasoo ay daba socdaan tiro badan oo taleefano ah saqdi dhexe ayaa la gaaray gariirka taleefanka ayaa toosiyay markuu indhaha kala qaaday wuu naxay waayo wuxuu arkay in qolkiisa taleefanada ay ku daboolan yihiin wuxuu awoodi la'yahay inuu helo iridda halkuu ka furi lahaa si uu banaanka uga ordo taleefanada shaashadahooda waxaa ka muuqanaya shimbiro ka hor intaynan gelin jirkiisa taasoo keentay inuu qarxo sidaasna ku dhinto subaxda xigtee booliiska way ku wareereen qaabka dhimashadiisa maadaama aynan jirin calaamado muuqday laakiin marka ay baaraan Nila iyo Fasey Garan waxay qolka ka helayaan qaybo qarxay oo taleefanada ka mid ah haradigooda Fasey Garan waxa uu ku rakibay raadraacaas taleefan wuu shiday si uu ugu daba inta kale ee raxanta ah qorshuhu wuu shaqeeyay waxay heleen aaga taleefanada ay tageen kadib markii la waayay Fasey Garan iyo Nila waxay raaceen jidka oo waxay gaareen tuulo yar sida ay muujinayeen calaamadaha electromagnetica waxa uu ku jiheynayay webi dhankiisa kaas oo korkiisa ay xayn shimbira ah ku geedaarsan yihiin oo u duulaya sidii dabeeshii waxayna ka samaysmeen taleefano isku tagay iyagoo soo bandhigaya dhacdo aan hore loo arag isla markiiba way soo weerarayaan munaarada ishaarada isgaarsiinta oo dhulka ay dhigayaan si qadka u go'o Nila ayaa Fasey Garan ka badbaadinaysa birta oo ku soo dhaceysay ka hor intaynan bixin shimbiruhu waxaa la soo abaabulay waqtigan kulankii labaad ee golaha Fasey Garan waxa uu ku talinayaa in dib loo howlgeliyo riboodkiisii ugu horeeyay ee GT si loola dagaalamo khatarta cusub si kastaba ha ahaatee mid ka mid ah xubnaha golaha oo bohra lagu magacaabo waa mid madax adag kaasoo lid ku ah fikradda sababtoo ah burburkii GT sababay 8 sano ka hor darteeda wasiirka oo qiimeeyay aragtidaha la soo bandhigay wuxuu go'aansanayaa inuu isticmaalo militariga si arinta loogu xaliyo halkii GT la soo kicin lahaa waxaa muuqata in bohra uu ciil u qabay Fasey Garan wuxuu ku eedeyn jiray dhimashada aabihiisa kaasoo GT uu hore u dilay iyadoo shirka kadib oo xoogaa isku dhax ah uu banaanka ku dhex marayo dhanka kale mulkiilaha shirkadda Telkom ninka lagu magacaabo Lula ayaa aad uga carooday xaaladda oo ku keentay khasaarad baaxad weyn kadib markii uu ku booriyay wasiirka isgaarsiinta Murthy inuu si dhaqsi ah u xaliyo dhibaatada ayuu dib ugu laabanayay gurigiisa laakiin intii uu sii socday Lula waxa soo weeraray raxan shimbira ah wuxuu joojiyay baabuurka si uu u arko jidka
oo dhan oo taleefano dabooleen. Raxantii ayaa duurka u eryanaysa, aakhirkiina way burburinaysaa iyagoo halkaas ku dilaya. Intaas kadib waxay yeesheen qaab shimbir ah oo weyn wayna duuleen. Wasiirka isgaarsiinta Murthy uu murugsan yahay maalinta xigta maadaama qof kasta oo hareerihiisa joogay uu u sheegayo in isagana lagu soo wajahan yahay oo goordhow la dili doono. Mulkiilayaasha shirkadaha isgaarsiinta isla markiiba taleefankiisa gacanta oo sidii kuwii hore loo waayay ayaa gurigiisa soo jabiyay. Markuu isku dayay inuu qabto, jidhkiisa ayuu galayaa isla markiiba. Waxaa loola cararay isbitaalka, halkaas wasiirka ayaa ku booqday. Dhaqaatiirta ayaa wehelinayay, aad ayay uga naxeen markii ay arkeen kombiyuutarka lagu eegay gudaha jirkiisa. Natiijooyinka ayaa xaqiijinaya inuu taleefanka gacanta ku jiro gudaha jirkiisa. Si lama filaan ah, taleefanka caloosha ayuu ku dhex dhaqaaqay, wuuna dilaaciyay, sidaasna wuu ku dilay. Wasiirka ugu dambeyntii wuxuu fahmay xaaladda oo maraysa halkii ugu xumeyd. Wuxuu wacayaa Fasey Garan si uu u soo kiciyo GT. Dhakhtarku isla markiiba wuxuu ka shaqaynayaa siduu kor ugu qaadi lahaa saaxiibkiisii hore oo awood iyo karti cusub ugu soo saari lahaa. Maalinta xigta, shimbirta taleefanka gacanta ayaa baalasheeda ku baabi'isay magaalada. Waxay burburinaysay dhammaan kaabayaashii dhaqaale ee ku sii jira dariiqeeda. Isla mar ahaantana waxay ka fogaanaysay iska caabinta militariga. Waxay ciidiyaheeda ku soo guraysaa dad fara badan oo ka soo daadinaysaa meelo sarsare. Markuu shacabku rajo beelay, Shiti ayaa soo noolaaday isagoo sidii hore ka xoog badan. Wuxuu bilaabay inuu badbaadiyo dadka iyagoo hawada ku jiro intaynan dhulka ku soo dhicin. Wuxuuna cirsanayay shimbirta si uu dadka uga buriyo. Raxantii taleefanada ayaa sidii kubaddii u go'doomiyey Shiti, laakiin ribootka ayaa u suurta gashay inuu si fudud uga baxsado dabinta. Kadib markii ay ka boodboodeen dhowr dhismo oo dhaadheer, wuxuu ku degayaa Shiti highway. Wuxuu afduubtay gaari military oo hub ka buuxay. Wuxuu ku guulaystay in shimbirihii uu ka dhex saaro dadkii badnaa. Shimbirku markuu cunay gaariga, ribootka ayaa gudaheeda ku qarxinaya. Burburkaas gaaray kadib, taleefanada badbaaday ayaa dib u habeen ku sameynaya shimbir yar oo waxay sii wadaan inay mar kale weeraraan. Iyadoo markaan Shiti uu bateriga kasii idlaanaya, wuxuu u gurguuranayaa dhanka koronto dhaliyaha saldhigga. Kadibna dib ayuu isku jaajareynayaa. Shimbirka ayaa gadaal u noqonaysa kadib markii ay awoodi weyday inay kasoo gudubto anteenada dayax-gacmeedka. Kadib markay xaaladda degtay, Shiti wuxuu tusay Fasey Garan xogtii uu aruuriyay intuu la dagaalamayay shimbirta. Waxay ku qiyaasaan in shimbirku yahay tirawadareed oo elektaroniga oo lagu talaalay dareen nacayb ah oo qof dhintay ka dambeeya. Maadaama lagu mideeyay qaab aan toosnayn, waxay leeyihiin dhammaan sababaha ay u rumaystaan arrintan. Dhacdo la yaab leh ayaa sababtay in qof dhintay uu helo awood ku filan oo uu ku maamulo taleefanada gacanta. Ereyada fudud ee aan ku sharaxi karno nafta si xun loola dhaqmay ayaa ah tan ka dambeysa waxaan oo dhan. Kadib markay ogaadeen sababta, Dr. Fasey Garan wuxuu ikhtiraacaya muuq soo bandhigaha, kaas oo soo saaraya calaamado togan oo la beegsanayo. Waxay rajeynayaan inay ku jiri doonto makhluuqa oo dhexdhexaadiyaan aaggeeda loo baahan yahay. Fasey Garan sidoo kale wuxuu falanqeynayaa kilibka shimbirta laga soo qaaday. Qalabka ayaa si isdaba jooga shimbirta uga soo saaraya weji bini'aadam. Muuqaalada qarsoon ayaa caddeynaya in wejigu yahay qof lagu xadgudbay oo taleefanada gacanta ku haya. Niila ayaa baaritaan kadib soo saaraysa diiwaan ku saabsan dhimasho la xiriirta taleefanka gacanta oo aan caadi ahayn, taasoo dhowaan dhacday. Isla markiiba waxay ogaadeen in maalin ka hor inta aanay taleefanadu bilaabin inay duulaan, inuu jiray nin wax aan lagu fikiri karin ka sameeyay xarunta isku xirta isgaarsiinta. Dr. Fasey Garan, Shiti iyo Niila ayaa qalabka u qaatay ilaa tuulada, halkaas oo taleefanadu ay ku nasanayaan. Waxay arkeen Raxan iyadoo isla markiiba ay soo weerartay. Isku dabiridaha ay wataan wuxuu dhexdhexaadin doonaa sida loogu talagalay, laakiin shimbirta way ka xoog badan tahay intii ay saadaaliyeen. GT wuxuu mashiinka ku ilaalinayaa noloshiisa, isaga oo aakhirkii u horseedaya badi inuu sii daayo kiimikadii dilaaga ahayd ee uu ka koobnaa qalabka. Marka shimbirku ku dhowaado inuu burburo, waxay ku soo koobmaysaa ukun, taasoo dabadeed isku beddelaysa muuqaal bini'aadan oo weliba ah naftii ay raadinayeen. Dr. Fasey Garan waxa uu aqoonsanayaa inuu yahay dhakhtar hore ee cilmiga lafaha oo lagu magacaabo Bakshi, kaasoo dhintay. Marka Shiti uu weydiiyo ujeedadiisa, waxay tahay Bakshi wuu isdejinayaa, wuxuuna geeyey guri, halkaasna wuu ku baaba'ay. Muuqaal hore ayaa dib u muujinaya in gurigan uu beri ahaan jiray hoygiisa oo ay la noolaayeen boqolaal kun oo shimbiro ah. Bakshi dhab ahaantii markuu dhashay, dhaqaatiirta way ka dayriyeen maadaama wadnihiisa uunan dhaqdhaqaaqaynin. Shimbir baa u soo duushay oo wadnihiisa dhaqaajisay, sidaasna ku badbaadisay noloshiisa. Xitaa sanado kadib mucjisadaas, si xamaasad leh ayuu shimbiraha ula dhaqmi jiray, wuxuuna la yeeshay xiriir qoto dheer. Laakiin waqtiyadii dambe, tirada shimbiraha ee Hindiya ayaa hoos u dhacday. Marka uu baaritaan ku sameeyey sababtana, Bakshi wuxuu ogaaday in shucaaca aaladaha mobilada ay soo daayaan ay ku qalqaliyaan habdhiska dareenka shimbiraha iyo inaynan karti u yeelan karin ay ku fikiraan, oo aakhirkiina qaar badan
badan ee u horseeday waali iyo jiro aan laga soo kabsan karin. Wuxuu qabtay siminaaro iyo mudaharaadyo badan si uu dadka ugu baraarujiyay dhibaatada, laakiin qofna lama wadaagin xitaa hal waqtiyadood oo naxariis ugu muujiyaan shimbiraha. Xitaa waa lagu mashaxaraday iyadoo lagu caayay danta nacasnimada ah ee muuqatay ee uu ka lahaa arrintaas. Mas'uulkii awoodda u lahaa inuu caawiyo wuxuu ahaa mulkiilaha shirkadda isgaarsiinta Lula. Si kastaba ha ahaatee, markii Bakshi uu u tegay isaga oo u sheegay dhibaatada, waa laga eriyay xafiiska iyadoo loo sheegayo in waqti dhumis halkan aan looga baahnayn. Sidaas oo ay tahay, ma uusan quusanin weli. Waxa uu ku mudaharaadayay banaanka dukaamada taleefanada lagu iibiyo, laakiin dadka ayaa iyaguna jiiraya oo dhinac u leexinaya. Kadib waxaas oo dhan markuu kulansaday, wuxuu ahaa mid keliya socod ah oo isku dayaya inuu la dagaalamo koox awood leh kuwaasoo iska tiirin kara dadka u dooda xuquuqda xayawaanka iyagoo wax dana aan ka lahayn ilaalintiisa. Muddo kadib, dhammaan shimbirihii ku jira xiradiisa lama taabtaanka ah iyo kuwii duurjoogta ahaa ayaa la kulmay niyad-jab oo way dhinteen inta uu la halgamayay arrintooda. Bakshi oo qalbi jabay ayaa wada aasay isagoo ooynaya maalmo badan. Wuxuu ugu barooranayay geeridooda shimbiraha sida ilmihiisa oo kale. Ugu dambeyn, wuxuu qabanqaabiyey kulan wasiirka isgaarsiinta oo la yeelanayay, kaasoo lagu magacaabo Murthy. Wuxuu ku eedeeyay dhammaan dhimashada shimbiraha. Murthy ayaa ku andacoonaya in sharciga ay u hoggaansameen si ay u dhowraan ganacsigooda, laakiin Bakshi wuu gartay in isgaarsiinta shirkaduhu ay si sharci darro ah u kordhiyeen heerarka shucaaca ay sii daayaan si ay u dardargeliyaan ganacsigooda. Waxa uu ka dacweeyay shirkadihii maxkamadda, ilaa xadna wuxuu ku dhawaa inuu guuleysto, laakiin taas ayaan sugnaanin ilaa shirkadaha ay damiyeen shucaaca ka hor inta aan la baarin kiiskooda. Waxayna ku guuleysteen kiiskii. Bakshi rajo uma harin, kaasoo aad u jeclaa horumarinta nolosha xoolaha. Wax yar kadib, murugadii ayaa isku beddeshay cadho. Cadhadii ayaa la gashay doonista argoosiga. Qorshihiisu ma ahayn keliya inuu ka arguto mas'uuliyiinta sarsare, balse sidoo kale dadka rayidka ah ayaa ku jiray, kuwaasoo xilkas aan noqonin oona ogolaaday in naftooda ay ku laayaan nolosha duurjoogta. Kadib maalin maalmaha ka mid ah ayuu fuulay daarkii shimbiraha dhimashadooda sababtoo ahaa ee shucaaca laga sii deynayay. Wuxuuna sameeyey wax aan la filaynin, laakiin shucaaca ka soo baxay munaaradaha ayaa ruuxdiisa qaatay. Waxay kaloo naftiisa nuugtay dhammaan shimbirihii dhintay. Kadib, shimbirihii magaalada ayaa abuuray kubad aad u weyn wax u samaysan oo kale oo tamar argoosi ah hadafkoodu yahay dil oo keliya. Waqtigan la joogo, GT waa uu ka damqanayaa Bakshi iyo xanuunkii lagu riday, halka weli Bakshi uu ku adkeysanayo inuu dilo qof kasta oo taleefanka isticmaala, isagoo u arka inuunan haysan waddo kale oo ku dhammeeyo tacadiyada loo geysanayo shimbiraha. Dhanka kale, Fasigaran wuxuu isticmaalayaa qalab wax holcinaya oo koronto sii deynaya si loo xadido makhluuqa. Si kastaba ha ahaatee, waxay ka dhigaysaa keliya inuu ku sii xooganaado. GT aad ayuu u dhaawacmay isagoo isku dayaya inuu la dagaalamo, laakiin waxaa dayactiraysa Niila. Kadib markii la soo nooleeyay, wuxuu weeraray Bakshi isagoo adeegsanaya qalabka lagu soo rakibay walxaha gubanaya ee korontada ka samaysan. Isagoo adeegsanaya qalabka dhexdhexaadiyaha uu ku dhejiyay nafsadiisa ayuu soo qabtay. Ugu dambeyn, waxaa la soo abaabulay shirweyne si rasmi ah loogu mahad celinayo geesinimadooda. Wasiirka ayaa u ogolaanaya Dr. Fasigaran in loo abuuro ciidan dhan 500 oo shitis ah, waa shimbiro bood ah, kuwaasoo loogu deeqi doono ciidamada si loo ilaaliyo qaranka. Fasigaran aad ayuu u faraxsan yahay sababtoo ah 10 sano waxa uu ku haminayay inuu caawiyo militariga Hindiya ayaa hadda u hirgelaysa. Si kastaba ha noqotee, dadka waxaa ka mid ah ninka la tartamaya ee aadka u nacab ee Bohra. Wuxuu dareemayaa hinaaso waxqabadkiisa. Habeenkaas, shaybaadhka ayuu jabiyey oo ka sii daayay ruuxdii Bakshi ee xasiliyaha hayay si uu mar kale u ugaarto Fasigaran. Muddo yar gudaheeda, Bakshi wuxuu dib ula wareegay gacan ku haynta taleefanada magaalada oo dhan, wuxuuna noqday mid ka xoog badan sidii hore. Wuxuuna qaatay jidhka ama muuqaalka Fasigaran si uu waddadiisa qofka keliya ee hortaagan uga leexiyo, kaasoo ah Shiti. Ninkii dilaaga ahaa ayaa kadib isku beddelay qof caadi ah, wuxuuna bilaabay inuu dilo qof kasta oo jidkiisa ku yimaada. Shiti waxa uu isku dayaa inuu la dagaalamo, balse wuu joogsaday kadib markii weeraradiisa ay dhaawac gaarsiiyeen Fasigaran. Bakshi waxa uu si buuxda u maamulay xaaladda. Waxa uu ka hoos bixiyay riboodkii, laakiin Niila ayaa dareentay xidhiidhka shucuureed ee Shiti iyo dhakhtarka ka dhexeeya inuu ka ilaalinayo inuu si sax ah u shaqeeyo. Inta lagu guda jiray waqtigan dhibaatada, riboodka keliya ee joojin kara Bakshi waa GT 2.0, waa midkii 8 sano ka hor dhibka geystay ee dadka laayay. Inkastoo uu khatar badan yahay, Niila waxay go'aansatay inay dib u soo kiciso. Dhanka kale, Bakshi wuxuu galay garoon ay joogeen 80,000 oo qof. Dhammaan taleefanadooda ayuu ka qaatay si uu tamar ugu kordhisto. Bohra ayaa sidoo kale xaadir ku ahaa goobta, laakiin waa bartilmaameedkiisa koowaad. Inkastoo dhinaciis inuu yahay uu
moodayay. Ka hor inta uusan waxyeelo kala geysan, GT 2.0 ayaa jebiyey garoonka isagoo u yeeray ciidankiisa, kuwaasoo wasiirka u ogolaaday in loo abuuro. Baksh waxa uu soo urursaday dhammaan taleefanada gacanta mar kale, wuxuuna noqday bini'aadam weyn, halka GT uu sidaasoo kale sameeyey isagoo isticmaalaya walxa bir ah. Iyadoo uu dhex maray dagaal adag, laakiin GT isla markiiba waa la damiyey. Markii Baksh uu ku dhowaaday inuu dilo, waxaa soo muuqday migripodka uu sameeyey GT ee loogu magac daray Kuti, kuwaasoo ah shimbir. Markii ay soo dhex gashay, waxaa wehelinayeen boqolaal shimbiro kale ah, kuwaasoo dushooda ku geedaarsamay. Qooleeda ayaa ugu hanjabaysay inay dhaawici doonaan Baksh hadduusan ka laaban waxa uu sameynaya, laakiin xitaa isagoo dhintay, jacaylkii uu u qabay shimbiraha ma iloobin. Isagoo og inuunan u ogolaan karin in shimbiro dambe ay wax gaaraan, ayuu dib ugu noqday. Waxay heleen fursadan. Kutis ama shimbirihii waxay isku beegeen oo ay qarxiyeen iyagoo burburinaya ciidankii Baksh ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Ugu dambeyntii, GT ayaa toogtay Dr. Fasegaran, taasoo keentay in Baksh uu ka tago jirkiisa. Shimbirihii boodka ahaana dabin ayay u dhigeen Baksh. Waxay ku sii daayeen durdurada ishaarka, halkaas oo GT uu kula qabtay xawaaraha koronto aan laga baxsan karin kuna burburiyey. Dhowr toddobaad kadib, Fasegaran wuxuu ku soo bogsanayaa isbitaalka. Wuxuu u sharaxay wasiirka soo booqday in rabshadaha Baksh ay ahaayeen kuwo aan qiil loo heli karin, laakiin ujeedadiisu aynan shar ahayn. Haddii la kala hormariyo tiknoolajiyada iyo dabeecadda nolosha, labaduba waxay soo jeedin doonaan bini'aadamka sidii Baksh sameeyey. Wasiirka ayaa amraya arrin lagu ilaalinayo hadhaaga tirada yar ee shimbiraha ah ee ku haray Janai. Goobta dhammaadka, waxaan aragnaa GT iyo Neela oo lamaane noqday.